السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نينكا ad ujeedin ee isfatashaya waa Soomaali 20 maalmood ilaa 10 maalmood wax u dhaxeeya ayuu joogaa dal aan kiisi ahayn naftii uu ka soo badbaadsaday dalkiisii hooyo ee uu kala soo baxsaday si uu nolol tan uu dalka ku haystay dhaanto u helo qoyskiisa wax u taro naftiisa wax u qabsado hadaf iyo nolol dheerna uu hiigsanay wax ka duwan ayuu kala kulmayaa wadankan muusan isdheeynin xaaladan ayaa ku dhamaan doontaa naftiisana xabadan ku dhici doontaa ayay u go'i doontaa mar dambe oo isbitaalka la geeyay maxaan rabaa muuqaalka intaan sii deelin gudbintu wax dhiba ma laha hal waxay faa'iido u leedahay oo ah war dhalinyarta Soomaaliyeed ee dalkoodii ka cararaya xitaa haday garteen inay ka baxaan meeshaan markay tagaan South Africa inay bal is ilaaliyaan kuwa hadda joogana fariintan waa inaan gaarsiinaa in badan oo kamid ah waa lahaayaan laakiin qaaran wali ogeyn marka hal taxadar Soomaaliyeed waa idin jecelna walaalaheenatiin dukaanka sida u jeedin waxa ku jira ninkan dhalinyarada ah waxa sida aad arki kartid amaan laay waxaan ku qiyaasay dadka khubarada ku ah aragtida hoosta ay ugu sheegan baashan gacanta uu ku haysto waxay tahay walaakiin nuucii hore socon jiray amaan laay dhigi jiray ila egta alaabtaas uu gacanta ku haysto ayuu ninkan dhalinyarada ah wuxuu ugu handadaa inuu ku bixiyo ama dhiibo waxa uu haysto waa laba rag nin ayaa xabadka ka saaraya kadib marka dukaankii laga baarna jeebka fatasha leeyahay lacag ma haysto leeyahay ninka luuqadii communicationka luuqada waa ku adag tahay sida la sheegay in dhawaan imaaday waay hadduu sadan kale u dhisnayn marka jeebkiisa gacanta la galaa wixii lacag laga heli karo waa laga qaatay war iska keedaayo leeyahay ma deenayo markuu baxay baashi wuu ku jiif cabeena wuu ku dhufana meeshaas markuu sii dhacay aniga halkan ma keeni kari telegramkan galiyay ninka Soomaaliga ah waxa arkaysa xaaladda quusta uu ku baxay runta rajada qoyska ee Marwa Fertility Center waxa ay qiimo dhimis 30% ah kuugu sameynaysaa qalimada taranka ragga iyo dumarka haddaba ka faa'iideyso fursadan qaaliga ay ku sameysay xarunta rajada qoyska ee Marwa Fertility Center kala xiriir taleefanada shaashada kaaga muuqda ama nagu soo booqo xarunteena Marwa Fertility Center ee argada degmada Hodan waa la qaaday mar kale oo kadib waliba cabaara uu yaalay ninkaas meesha waxa la sheegay in gurmad markii dambe yimaadeen Soomaaliya meeshu waa kala fufugta inta badan laakiin waxay ka dhacday arintan Cape Town sida la xaqiijiyay marka ninkan dhibaatada markay ku dhacdayna waxa la sheegay in isbitaalka loo qaaday isbitaalka markii la geeyay kadib ayaa waqti dhow sida xogta ugu soo gaartay uu geeriyooday meesha falka uu ka dhacay waxa la yiraahdaa Cape Town gaar ahaan gobolka Khaleej barta rasmiga ahna waxa waay Filimbi meesha la yiraahdo wiilkan 20 ilaa 10 ilaa 30 inta u dhaxaysa aday waxaan ka badnayn bil uu joogay wadankaas oo dhan sidaas ayay naftiisa u go'day Soomaali waa horay waxa u tabinay dhalinyaro kale oo saan ah laba ah hal meel isla fadhiso saan oo kale loo sameeyay dadka qaar waxay sheegaan oo meesha ku shaqeysta in Soomaalida dhaxdooda Ilaahay inta isku imtixaan marka qaarkii ganacsi darteed nafta la isku dhaafay tiyo jirtay cadow hadana u sii dheer Soomaalida haday isku imaado wax ka awood badan ma leh dal shisheeye markay joogaan in is jeclaadaana fiican oo ay is ilaashadaan Somali Sudanese Specialist Hospital waa isbitaalka ugu fiican dalkeena waxa uu ku guuleystay markii afraad oo xiriir ah abaalmarinta isbitaalka ugu fiican dalkeena hadba aad minaad naftaada rabto hadii kalena xaan kuugu aalhe Soomaalida runtii dhibaato meel walba ka haysata ama qurbo joog ama wadanka joog hadda ninkan dhalinyarada bal muxuu ku baxay xitaa wixii uu haystay wuu sii nimankaasna ma gartaan wixii leedin siiyay ninkan ka leexda nafta ayay maaragtay qofka inay dhaafiyaan ka go'aanba mana hayaalan ku tilmaami karna si ka soo noqotay marxuumka Allah u naxariisto taxadarkan waa muhiim. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.